الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى واقتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا صدق الله العظيم وقال صلى الله عليه وسلم عن أبي موسى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت رواه البخاري أو كما قال صلى الله عليه وسلم walaalaha ee aan ku mudownay faafinta khayrka waxaan idin leeyahay soo dhawaada insha allah waxaan rabaa inaan ka hadlo mawduuc yar ee ku saabsan dikriga allah subxaanahu wa tacaala. ilaahay qur-aanku wuxuu ku leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu dkuru llaha dikran kathiira وسبحوه بكرة وأصيلا. وعقل إلهي رسولك صلى الله عليه وسلم عليه مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عليه مثل الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي. إذا الحديث كان تفاصيل ير لقب حيوي يعني. marka walaalayaal mawduucan yar ayaan rabaa insha allah inaan dul istaago maxaa yeelay waa lagama marmaan in aan is-xusuusino ama is-xasuusino allah subxaanahu wa tacaala dikrigiisa xadiid dheer ee ku jira arbaciinka ee rasuul sal salam يعني كتل مامي حتى إن يعني جهادك وكخير بدنيا ذكرك إن لبحي ذهبك ورقة وحاصي إن أي كخير بدنت ذكرك إنه قفكي نصوهله هلات أما لبا هلات أما ست حالات أما أفر أما وحي كبدا أو قيلة وحولاه in ay ka khayr badan tahay dikriga allah subxaanahu wa tacaala. wuxuu kaloo rasuulku leeyahay laa yazaalu lisaanuka radban min dikri illah, yuusan ka zuulin inuu ku qoynaado carabkiina xuska allah subxaanahu wa tacaala. aayaddan ku hormaro wuxuu leeyahay ilah subxaanahu wa tacaala caza wajal yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu alla rumeeyey udkuru llaha alla xusa ذكرا حسيت كثيرا فربضا. إلى آيات كلمة حكولية والذاكرين الله كثيرا والذاكرات سورة الأحزاب آيات كاد ليس إن المسلمين والمسلمات إلى آخر آية والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. إلهي محمود براعي آياتاني ميشكو مصن جوجينين أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الله أكبر. والذاكرين الله رجا مؤمنين الله حسا كثيرا إنبضا إيا والذاكرات مؤمنات كالله حسا أعد الله لهم مغفرة إلى وحو الدياري دنبي داف أما وحو يبوهي دنبي داف إيا أجر وينه. الله أكبر. رسولك حديث صلى الله عليه وسلم حليه هاي مثل الذي يذكر ربه كي تسالي وكان ربك حسا يكن عن حسين قفك الله سبحانه وتعالى حسا يكن الله عن حسين أو عن أسجد أو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله عن أفكي سكسبحين وحي كلام ديهين سيدا قف نول يقف دنتي. حديث كان صحيح وين البخاري كتاب كيسوكو جرا. marka walaalayaal waxaana laga rabaa allah subxaanahu wa tacaala inaan xusno
oo noolagugu daro maalinta yawm alqiyaama kuwa xus ilaahi subxaana watacaala xusu jira markay adduunyada joogaan. xuska faa-iidada ay leedahay kow waxa weeyaan qofka isagaa ku dhowrsamaya, wuxuu noqonayaa qof wanaagsan, wuu dhowrsamayaa, waa la ilaalinayaa, dembiyadiisana way yaraanayaan. allahu akbar. dembiyada ka dhacaya waa bini aadan qofka, laakiin dembiyada ka dhacaya ayaa yaraanaya. ilaa heer wuxuu gaarayaa qofka carabkiisa la qabsado xuska alla subxaanahu watacaala, oo naftiisa ay barato. nafta tababar bay u noqonaysa waa ilaa ay la qabsato. marka nafta waxa la baro waxa weeyaan ma hilmaamto, mana yacni istaajiso, way joogtaysaa. waxaad naftaa barto bay la qabsanaysaa. labo, faa-iidada kale ku jirto dikriga ilaahi subxaanahu watacaala, adduunyada muraadkaagi ducooyinkaagi ilaah ku aqbalayaa. waxaad noqonaysaa mid ducadiisa la aqbalo. waxaad noqonaysaa mid adduunyadu iimaan baad ku helaysaa, iimaankaa kuu ziyaadaya, wax walbanaad ku qancaysaa. waxaa kaloo faa-iidada kale ku jirta waxa weeyaan dembigaaga lagugu dhaafaya. allahu akbar. aakhirana ilaah wuxuu kuu ballan qaadayaa ajir weyn, janno. marka walaalayaal, inaan ka mid noqono kuwa alla subxaanahu watacaala carabkooda ku xusa, mar walba ilaahi subxaanahu watacaala joogtaya xusida ilaahi subxaanahu watacaala. marka walaalayaal, xuska faa-iidooyinka ay leyna intaa ah. waxaan ka tagay oo aan khaldayna naf iyo shaydaan bay ka ahaadeen. waxaan saxay ee aan la imaaday fa min allah, ilahi xaggiisa ka ahaadeen. hada billahi towfiiq, wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu.